kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa warbaahinta Soomaali Vlogger Media ku soo dhawaada warkii ugu dambeeyay ee gudaha dalka qodobada ugu waaweyn ee aad daawan doontaan waxaa kamid ah golaha mustaqbalka Soomaaliyeed oo shuruudaha ku xiran ka qaybgalka gogosha uu fidiyay 10 bishan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hadaba waa maxay shuruudaha adag oo ay miiska soo saareen xubnaha mucaaradka sidaysa dawladda Soomaaliya shuruudahaas ugu gudbi doontaa oo ugu doonaa qodobada kale aad daawan doontaan waxaa kamid ah Imaaraadka Carabta oo afar wadan ku riixaya inay aqoonsadaan maamulka Somaliland hadaba waa kuwee dalalkaasi maxay tahay ujeedada rasmiga ah ee ka dambaysa in Imaaraadku dalalkan ay ku aqoonsadaan macluumaad iyo faahfaahin arrimahaas ku saabsan ayaa daawan doontaan qodobadan iyo qodobada kale nagu soo kordha ayaa daawada ugu daawan doontaa qaybtan haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo subscribe sar channelkeena haddii aad hore noo joogto waxaad mahadsan tahay like sar muuqaalka waa hagaag aan ku bilaabo golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ayaa shuruud cusub waxay ku xireen ka qaybgalka gogosha wadahadal ee uu dhawaan uu fidiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud mucaaradka ayaa sheegay inay diyaar u yihiin wadahadal haddii madaxweynuhu joojiyo doorashada halka dhinaca lana helo dhexdhexaadiyaal lagu qanci karo golaha mustaqbalka Soomaaliyeed wuxuu si taxadar iyo mas'uuliyad lehba u soo dhaweynayaa casuumaadda uu fidiyay madaxweynaha Soomaaliya ee ku aadan wadahadalka la qorsheeyay in 10 bishan May 2026 uu ka qabsoomo Muqdisho ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay golaha mustaqbalka Soomaaliyeed sidoo kale waxaa bayaankaasi la raaciyay waxaa inta dheer in casuumaadda uu haatan fidiyay uu maalinkii kadib ugu dhawaaqay jadwalka doorasho hal dhinac walina ay sii socdo barakicinta dadka xarigii dhalinyarada taasoo cadeen u ah in casuumaadii aysan qoraal dhaafsiisneen walina uusan diyaar u ahayn wadahadal dhab ah ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay xubnaha mustaqbalka golaha mustaqbalka Soomaaliyeed wuxuu si taxadar leh iyo mas'uuliyadba u soo dhaweynayaa casuumaadda uu fidiyay madaxweynaha Soomaaliya ee ku aadan wadahadalka la qorsheeyay in 10 bishan May uu ka qabsoomo Muqdisho goluhu wuxuu cadeynayaa inuu hore si niyad sami iyo daacadnimo lehba uga qayb qaatay wadahadallo xilli uu madaxweynuhu ku barbar waday talaabooyin uu si sharci darro ah ugu bedelayay dastuurka dalka waxaa intaasi dheer in casuumaadda uu haatan fidiyay uu maalinkii dambe ku dhawaaqay jadwalka doorasho hal dhinaca walina ay sii socoto barakicinta dadka xarigii dhalinyarada taasoo cadeen u ah in casuumaaddu aysan qoraal dhaafsiisneen walina uusan diyaar u ahayn wadahadal dhab ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay xubnaha mucaaradka goluhu wuxuu mar kale uu adkeynayaa sida ay uga go'an tahay ka qaybgal wadahadal dhab ah oo heshiis qaran looga gaarayo doorashooyinka dalka hase yeeshee wuxuu aaminsan yahay in wadahadal dhab ah uusan suurtagal noqon karin iyadoo ay barbar socdaan tallaabooyin lid ku ah wadaxaajoodka iyo is-afgaradka hadaba goluhu wuxuu cadeynayaa inuu diyaar u yahay wadahadal haddii uu madaxweynuhu qaado talaabooyinka soo socda inuu muujiyo daacadnimo dhab ah oo ku aadan wadahadalka joojinayana talaabooyinka doorasho ee halka dhinac ee natiijadeeda la sii ogyahay balse qof iyo cod ku magacaaban in la helo hanaan dhexdhexaadin madax bannaan oo la isku raacsan yahay goluhu wuxuu si cad u adkeynayaa in heshiis siyaasadeed oo ku saabsan doorashooyinka la gaaro ka hor 15 bishan May 2026 oo ku eg muddada rasmiga ah ee muddaxileedka madaxweynaha Soomaaliya haddii taasi dhici weydo goluhu isagoo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed wuxuu qaadi doonaa talaabooyin mas'uuliyadeed oo lagu badbaadinayo midnimada iyo jiritaanka dowladnimada dalka ayaa lagu soo gabagabeeyay bayaanka ka soo baxay xubnaha mucaaradka ee shuruudaha adag lagu hordhigayay madaxda Soomaaliya si gaar ah villa Soomaaliya oo ugu horeeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyagoo markaan hordhigay shuruudahan adag haddii la doonayo inay ka soo qayb galaan gogosha uu fidiyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud 10 bishan May inay ugu yimaadaan xubnaha mucaaradka oo ay ugu horeeyaan Shariif Sheekh Axmed Cabdiraxmaan Cabdishakuur Xasan Cali Khayre iyo mas'uuliyiinta kale ee ka tirsan xubnaha mucaaradka keesta kale maalintii labaad oo xiriir ah kulanka xubnaha mucaaradka waxaa ka soo muuqday xogayihii ururka JSB oo hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xildhibaan Cabdiraxmaan Odowa oo kaasoo isagu maanta marka lagu arkay kulankii xubnaha ay ku yeesheen Hotel Jazeera ee magaalada Muqdisho si kastaba noqotay xubnaha mucaaradka ay ka soo horjeeda dawladda Soomaaliya ayaa waxay Muqdisho ay ka wadaan kulamo istabado si kastaba noqotay xubnaha mucaaradka ay ka soo horjeeda dawladda Soomaaliya ayaa Muqdisho waxay ka wadaan kulamo istabadjoog ah kaasoo ay kaga arinsanayaan xaaladda dalka iyagoo kulamadoodana inta badan ka soo saaraya fariimaha jawaada oo
xubnaha mucaaradka ee kasoo horjeeda dowladda ayaa maalmihii ugu dambeeyeyba waxay kulamo istaba joog ah ay ku leeyihiin magaalada caasimadda muqdisho iyagoo markaasna kulamadooda kasoo saaraya fariimo u badan hanjabaadyo kuwaasi ay u dirayaan dowladda federaalka Soomaaliya. Haddaba daawade sida u aragtaa shuruudaha adag oo xubnaha mucaaradka ay ku xireen ka qaybgalka kulanka ama kugasha uu fidiyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud taasoo loo madalsan yahay inay qabsoonto 10 bishan May 2026. dhanka kale daawade ee dowladda Imaaraadka Carabta ayaa wada dadaal ay ku doonayso in dalal cusub ay ku aqoonsadaan maamulka Somaliland sida ay ogaadeen warbaahinta ila wareediyo diblomaasiyadeed iyo sidoo kale sirdoon oo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaana arrimahaasi laga soo xigtay ila wareediyada ayaa sheegay in Imaaraadka uu si gaar ah uga shaqeynayso dalalka Iswadiini, Argentina, Zambia iyo sidoo kale Indonesian Republic si markaa loogu riixo inay aqoonsadaan maamulka Hargeysa bilo kadib markii Israa'iil ay noqotay dalkii ugu horeeyay si rasmi ah u aqoonsada Somaliland bishii December ee tagtay 2025. sida ay xogtu sheegayso talaabadan ayaa dhici karaysa koor amaba ku beegan karta 18 bisha May maalinta ay Somaliland u dabaaldegto sanad guuradeeda waxaana ay ku sheegto inay markaa dib ula soo noqotay madaxtinimadeedii Soomaaliya inteeda kale. dowladda Soomaaliya ayaa Somaliland u aragtay qayb ka mid ah dhulkeeda waxayna si joogto ah uga digtay in aqoonsi kasta oo shisheeye uu dhaawacayo madaxbannaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Somaliland ayaa ku dhawaaqday inay ka kooday Soomaaliya inteeda kale sanadka markuu ahaa 1991 kadib burburkii dowladdii dhexe balse muddo ka badan 30 sano ma aysan helin aqoonsi caalami ah oo rasmi ah ilaa go'aankii Israa'iil sanadkii hore ay ku sheegtay inay aqoonsatay Somaliland. dalalka aqoonsiga ila wareedyada la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Iswadiini iyo Argentina yihiin labada dal ee ugu dhow inay qaadaan talaabada aqoonsiga inkastoo aysan weli jirin go'aan kama dambeys ah oo la xaqiijiyay arrinkaasi ku aadan. Iswadiini oo ah boqortooyo yar oo ku taala Koonfurta Afrika ayaa ka mid ah dalal aad u kooban oo dunida ka tirsan oo weli xiriir diblomaasiyadeed rasmi ah la leh Taiwan. Iswadiini oo ah boqortooyo yar oo ku taala Koonfurta Afrika ayaa ka mid ah dalal aad u kooban oo dunida ka tirsan oo weli iyaguna xiriir diblomaasiyadeed rasmi ah la leh Taiwan oo Shiinaha iyadoo ka kooday. Taiwan iyo Somaliland oo labadaba wajahaya diidmo xoogan oo uga imaanaysa dowlado waaweyn oo ay ka tirsan yihiin ayaa sanadkii 2020 xafiisyo wakiilaha ka kala furtay magaalooyinka Hargeysa iyo Daybi. mas'uuliyiin Soomaali ah ayaa rumaysan in Abu Dhabi ay isku dirayso inay tusaalaha Taiwan u adeegsato sidii Iswadiini lagu riixi lahaa talaabo la mid ah kuwa oo ku saabsan Somaliland. ila wareedyada ayaa sidoo kale sheegay in Imaaraadku uu Iswadiini u ballan qaaday taageero dhaqaale oo xoogan haddii ay aqoonsato Somaliland inkastoo aysan faahfaahin ka bixin inta uu leeyahay ballanqaadka loo sameeyay dalka Iswadiini. Argentina sidoo kale si dhow waxaa looga eegayaa Muqdisho sabab la xiriira madaxweyne Javier Milei oo si weyn u taageera Israa'iil isla markaana caan ku ah inuu jabiyo xeerar badan oo diblomaasiyadeed oo dalal badan ay ku dhaqmayeen. daanta wadayaal wanaagsan wararkii ugu dambeeyay gudaha dalka haddii aad nala soo gaartay ilaa dhamaadka waad ku mahadsan tahay like sar muuqaalka haddii aad nagu cusubtaan nagu soo biir.